بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa xarunta la talinta dadka iyo horumarinta shaqada Dr. Safiin. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan Soomaali weyn meel kasta ay joogaan. Salaanta islaamkan ku salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. casharka maanta aan rabaa inaan halkan ka soo jeediyo ama u soo jeediyo Soomaaliya ama Soomaali weyn. waxaan rabaa inaan ka hadlo insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo waxa la yiraahdo qaran Soomaalinimo waxa la yiraahdo ayaan rabaa inaan ka hadlo. horta waa maxay qaran? waxa la yiraahdo qaran maxaa la dhahaa? maxaa qaranka waa iska maqalnaa, dadku qaran way maqlaan, cid walba qaran waa leedahay, ummad kastoo meel joogtaa qaran bay leedahay. maxaa qaran la dhahaa? aniga waxaan is leeyahay haddii fikirkayga ka hadlo wixii aan ku qaldanaana qof kasta oo Soomaaliya ayaa sheekadan ila leh ama aan wadaagnaa ama aan wadaagayna insha Allah. marka waxaan leeyahay qaran marka aan ka hadlayo inta hadda ugu muhiimsan aan soo koobayo waxa waaye qaranka waa dadkii, waa dhulkii, waa afkii iyo calanka waaye. inta hadda ugu waaweyn waaye. marka dhul haddaadan lahayn qaran ma noqon kartid. calan iyo calaamad adigu aad iska leedahay oo meeshaas ka taagan dhulkaas oo seera ah haddaadan lahayna qaran ma noqon kartid. dad haddaadan lahayna oo meeshii dadba jirinba qaran ma noqon kartid. af kuu gaara haddaadan lahayna oo afkaa rabti ku hadashidna qaran ma noqon kartid. waxaan rabaa marka ereyga qaran maanta inaan maceeyo, wanaajiyo, maraq digaag ku daro, xawaaji ku daro, halkan soo dhigo baan rabaa. waxaan maqli jiray hantiyey macaan waa midaan hooy laga oraney, hantiyey macaan waa midaan hooy laga oraney, hantiyey macaan waa midaan hooy laga oraney. qalbiga ay xanuuna markaan maqlo intaas hantiyey macaan waa midaan hooy laga oran. macnaha hanti markii horta la leeyahay waa waxa adiga aad leedahay. tan marka waa waxa adigu aad leedahay, waxa anigu aan leeyahay waaye. hantidu marka labay u kala baxdaa. midna waa midda gurigaaga kuu taalla, ilmahaaga hantida waa ilmahaaga hantiday ka mid yihiin. gurigaaga waxa yaal hantidu ka mid yahay, aqalkaaga hantidu ka mid yahay. laakiin taas maaha, taas nama deeqdo. hanti maanta markaan leeyahay waa midda aan wada leenahay waaye oo ah dhulkan dhulweynaha Soomaaliya aan leenahay waaye oo magaca Soomaali ah. dhulkaas marka wax yar haddaan ka faalla ka bixiyo, dhulkaas waa inuu leeyahay dhul oo xeeraha adigu kuu xariisan oo aan cidi kula wadaagin oo cidi kula lahayn oo meesha rabta ka seexan kartid. Itoobiya kugu soo weerarin, Kenya kugu soo weerarin, Jabuuti cid kugu soo weerari karta aysan jirin. adigu aad leedahay dhulka Soomaali la dhaho, dhulka Soomaaliyeed la yiraahdo. meeshaad ka istaagtay geedka xagga ugu xiran meeshaad ka sigaysid labada geed. hadda ka horaan waxaan aniga u safray Kenya. markaan Kenya u safray baa Kenya labooye waxaa jira iyo Kenya Soomaali. Kenya labooye markaan gaarnay geed weyn meesha ku yaalay waxaa joogay laba shiftaa joogta, dad oo shiftaha dhinaca Kenya labooyana degan oo iska Soomaali kala ah, dhinaca Kenya Soomaaliyan dad kala degan. labadu waa Soomaali, waa dad aad u dhib badan Soomaali meel kasta oo jooga. Ilaahu hana dhibi. Kenya laboole marka Kenyadaas marka xagga ah Soomaali leeba deganba, Kenya kale ma degana. Kenya labay marka dhinaca soke baabuurta la kala dhacaa. marka xagga waxa u socdana kuwa kale waa dhacayaan, kuwa halkan u soo socdana waa dhacayaan. waxayna waa isla Soomaali. laa ilaaha illa allah muxammad rasuulullah. markaad maraysid meesha markaysi Soomaalida xaggeeda marka u soo socotid waxaad ku soo galaysaa si rafaad baabuurta geedaha dhan jeexaya. qofkii yaqaan baa yaqaana, geedaha dhan baa ku jeexaya. adiga dhan markaas waxaa la soo gelinaya dhobley, waxaa la soo gelinaya dad oo wada dhaawaca, dad rafaadsan oo la soo dilay oo
dhinaca kale laga soo dilhaya laga soo tooganaya markaas wuxuu aadahaya dhinaca kale uu kiya laboyo galahaya oo u cararhaya oo ninkaas ninka kiyaati waaye marka soomaalida noocaasa iska jirto iska dhib badan aad markaan maqlo soomaalida kenya xagga iyo soomaalida kaas markaan maqlana aad iyo aad baan u calool xumooda marka magaciina waa kula sheeganhayaan xagga hadhow markuu soo gala soomaali baan ahay buu kula leeyahay xagga markuu tagana wuxuu ku leeyahay aniga waxaan ahay soomaali heblaaye ama soomaali etoobiya ama soomaali kiyaan baan ahay buu ku leeyahay halkan markuu yimaadana maba ka xigtay dalkii soomaali baan ahay buu ku leeyahay marka waxaan rabaa inaan kala sheego aan arintayda sii faahfaahiyeysa ila tegin xoogaa waa aad bay ila tegaysaa ayaantaas dhibaatada aan arkay maalinkaas waxaa naga dhacday saddex qof baa naga dhacday nin odayah iyo gabar iyo waxaa naga dhacay cunug yar baa naga dhacay wallaahi inaysan been ahayn baabuurka waxaa geedkii baa la baxay dhab oo la baxay ayadoo xabadana laku wadaan la dhaceen ilaahay amarkiisa adiga waxaa lehay odaygii meeshiiba ku jijabay waxaa loo soo celshay dhobley gabadhii way caafimaad qabtay cunug yarkaana waa caafimaad qaba labada waa lasoo kala qaaday dad soomaaliyaha qaaday dad soomaaliyaha soo gudbiyey waxaana lakaga daba keenay gaarisaana lakaga daba keenay markii dambeeto ilaahay amarkiisa day sheegteen baabuurta anaguna dee meesha markaan tagna dadkaasaa naga dhumay baa layidhi waa arrin cajiib waaye arrin naxdin la waaye soomaali ha isdhacdo ha isdisho laba gobolna ha kala sheegato laba dal hadhow markuu kuusoo galana ha ku yihahdo soomaali baana soo afkiibuu kula sheeganhayaa waxaan rabaa intaas iyo ila tegin waxaan rabaa inaan soo koobo soomaaliya qarannimada marka waxaan rabaa qof kastoo soomaali ah meel kastaba ha joogo waxaan leeyahay warhoy dalka aad hadhow kusoo hiranaysid oo adiga aad imaanaysid oo soomaali baan ahay aada leedahay ood ku noolaanaysid oo calanka intaad baasaboorka kala tuurtid baasaboorkana aad ku imaanaysid wado layska mara maahan wado layska mara maahan dadka lahna waxaan leeyahay sankaaga iyo faruurtaada dhexdeeda wado la iska mara maaha ninbaa waxaa layidhi meel isagoo fadhiya baa isagoo hurdaya waxaa layidhi waryaa suuxaanyadaana ku dul martay markaasuu oohin la dhacay war maxaa dhacay sankayga iyo inta udhexaysa faruurteeda wado la mara miyaa buu yidhi macnaha xikaayo uga dan lahaa sankayga iyo faruurteeda wado la mara miyaa marka suuxayadu markay dul marayso hadhow soo ima cuni karto waxay rabtay iguma sumin karto suuxayan wax ma cunto laakiin halaqiigaleen bay noqonayaa buu yidhi marka sankayga iyo faruurtii inta halaqiigaleen marka soomaalinimadii haddana annaga maaragtay annagoo soomaali ah baa kiinkiya iska yimaado wuxuu raba iska sumiyo xaggan wuxuu raba la aado halkan wuxuu raba ku dilo kii kale kana xagga wuxuu raba ku dilo halaqiigareen baan noqonaynaa marka waxaan leeyahay soomaaliya magaca soomaaliya alla macaan badanaa magaca soomaaliya dadka sheegtayo waxaan leeyahay oo dalka soomaaliyeed sheegtayo calanka soomaaliyeed sheegtayo dadka soomaaliyeed sheegtayo waxaan leeyahay kulliba afka soomaaliya dad badan baa nala sheegta kuwaas laftigooda magaca afka soomaaliga nala sheegta marka waxaan leeyahay afka soomaaliga waa dhiganhaya xaggaan dhiganhaya dad badan baa nala sheegan karaa afka soomaaliga ku hadla laakiin qarannimadeenna waxaa waaye annaga qarannimadeenna waxaa waaye waa dhulkeenna waa calankeenna baluuga waa dadka soomaaliyeed oo soomaalinimada ay ka dhab tahay oo soomaaliga ah oo dhalkan leh oo dhul kale aan lahayn sidaydoo kaleeto afartaas waaye marka waxaan rabnaa dhallinyarta soo koraysa hadda jiilka soo korahayaa inay ku baraarugaan inay dhul leeyihiin inay calan leeyihiin inay af leeyihiin oo afkii soomaaliga ayuu qaran si rasmiya ay u leeyihiin si rasmiya inay u leeyihiin afka adiga cid kale kulama wadaagto laakiin waa lagula hadli karaa laakiin cid kula wadaagta ma jirto afkaaga soomaaliga adiga iskale laakiin ciddii rabta waa kufsan kartaa kufsi waaye waa kufsan kartaa anagoo luqadda ingiliishka iyo carabiga iyo waxaan rabnaa iska samaysanaa laakiin afka soomaaliga annagaa iskale cid kaloo af soomaali meel kasta kula hadlaysaa ma jirto af soomaaliga luqadda waa luqadeenna waxa waaye waa waxa gaar annaga u leenahay inaan xafidano inaan ilaalino inaan ninka ku hadlayo niraaniho afkeena ha naga ba'in dad baan maanta waxaan arkay oo jira oo wax xaqiiqo ah soomaaliya inay ku dhex jiraan hadda ka horna ku dhex jireen ninbaa wuxuu ka imaanayaa afka soomaaliga aan aqoono
wuxuu kuu samaynhayaa adiga luuqadiibu kuu samaynhayaa uu leeyahay luuqadaada sidaan ugu hadal haddii ilaahay kuu reeyahay soomaali baan midaynhayaa luuqad saxaan ku midaynhayaa soomaali baan midaynhayaa waxaan mashruuc baan waxaan u samaynhayaa waxa la yidhaahdo kan hadda laysku haysto xildhibaanadii isku haystaan macnaha waxaan u samaynaya sharci baan u samaynhayaa afka soomaaliya oo ay ku hadlaan oo isku dhaqaan oo isku hagaajiyaan aan u samaynhayaa waa nin kale oon afkiiba aan ku hadlinba laakiin wuxuu isku jajabinhayaa inuu wax asaga uu yaroo soo barta iyo oo asagu afkaas soo bartay annaga nagu jajabiyo nagu waxeeyo marka meeshaas waxaan ka wadaa waxyaalo badan baa afka soomaaliga horta maanta wuxuu noqday wax aan jirin oo dhibaato haysato oo oynahayu noqda kaas ooyin buu meel fadhiyaa afkii soomaaliga wallaahi ooyin buu meel fadhiyaa dhulkiina oohin buu meel la fadhiyaa nin walbaa iska soo galahaya wuxuu rabuu ka samaysanhayaa waa la iska cunahayaa dadkiisa way fiirsanhayaan dadkiisa lagu dilhayaa lagu bahdilhayaa waxay rabaan looga samaynhayaa calankiisiibaa haddii alkuurahay qola iska jeexjeexaysaa fiiri waana soo gelaysaayo waxay rabay ka samaysanaysaa markay joogto af soomaaligan ku hadlaa soomaali maale meelkay wadankii meelo kala tagto jaaf ahna way jeexjeexaysaa calankii way ku cayaaraysaa haddii ilaahay kuu rooyahay afkiibaa la iska cayaarhayaa dhulkiibaa la iska soo gelahaya la iskaga cayaarhayaa calankiibaa la iska jeexjeexayaa maxaan qaran ku noqon karnaa marka maxaan dad ku noqon karnaa maxaan hantideena ku ilaashin karnaa seen ku ilaashin karnaa hantideena ya waa la imaanhayaa dad baa iska soo gelinaya waxay soo gelinayaan badihii qashin baa la iskaga soo shubahayaa gabow ayaa lagu rahaya xataa dalkiibaa qashin lagu soo shubaa inta lasoo qaadaa baabuur lagu soo shubaa xataa qashinka la keenaya nuclear qashin la iska keenaya maxaan nahay marka annaga maxaan ku suganaa dalka yaa leh waxaan rabaa dalka dadka lahaan rabaa aawe war halay tuso dadkii dalkan lahaa soomaaliya dadkii lahaa halay tuso waan ogahay dad inay u dhinteen dhiigooda u beeleen u dhinteen yaa dhiigooda u daadsheen soomaad garan bahal ku cunay ayagoo hod maraya gaajo u dhinteen lagu inqaabay lagu dilay lagu rafaadshay yaa aawe dadkii aawe waa la baabiyey dadkii miya ma soo bixi karnaa marka hadda ma soo noolaan karnaa dhalinyaro noolaata oo magacooda afkooda luuqadooda ma fahamtee luuqadooda diinta waana lala wada leeya diinta soomaali baa nahay maasha allah qof walba diintiisa godkiisa yaroo la galaya waa inuu ilaashadaa kaas kama hadlayo aniga maanta laakiin waxaan ka hadlaya diiraddu ii saaran tahay waa dalkan soomaaliya dadkii lahaa dalkan soomaaliya soomaali weyn dadkii lahayo hadda badaha aan ku dagaalamayno bad baan gees yar aan ku dagaalamaynaa gees yar aan leenahay kenya melihid iyo anagaa leh yur baa dad waxay u taagnaayeen 24 saac 24 saac u taagnaayeen ilmahoodii iyo xoolahoodii iyo dadku inta uga soo kacanay u taagnaayeen calankooda inta halkaas saarteen bay u taagnaayeen meel yar oo la rabo luuq yar oo biyuhu ka laabanaya u taagnaayeen dadna qashin bay ku soo gurayaan dadna way iska soo galayaan waxay ramaksadaan waana dalkeena xafidan karin waana xafidan karin waana ilaashin karin waana body card u samaysan karin waana qof dad ilaaliya u samaysan karin waana qof dadka inta iska soo galeen bay saldhigyada adiga kuu joogaan dad Soomaali ahayn baa saldhigyada kuu jooga meel kasta kuu joogaan xafiisyada kuu joogaan aday dadkaaga dilhayaan oo kugu soo galayaan way ku dilayaan waa kula nool yahay guriyaha ku galayaan ilmahaagii haysanayaan ilmahaagii kaniisada iyo waxay geenayaan iyo qashin ay tababarayaan oo dalkaagii lagu tababaraya ilmahaagii lagu tababaraya luuqada kale lagu tababaraya waxa lagu tababaraya wadan lahayn lagu tababaraya waxa lagu tababaraya inuu maaragtay qaniis noqdo waxa lagu tababaraya inuu maaragtay hadii ilaahay ku reeyay wax allaale wixii laga raba laga sameysanayo si isku ilaalin karnaa marka si isku anaga kala shakinayna anaga Soomaaliya kala shakinayna si isku ilaalin kartaa si isku ogaan karnaa ma isla socon karnaa horta qofka waxa la yiri ma iska socota ma isla socon karnaa war Soomaaliya ma isla socon karnaa annagu nafteena ma isla socon karnaa maxana la ka rabaa marka maxana la ka rabaa wax yar bana la ka rabaa wax yar bana la ka rabaa yaa ina niraano airportka markaa soo galaysa xagee ka timid maxaa tahay keen qaabadaad keen sharcigaad xabada dhab xabis dhab naga tago naga noqo airportka aan fariisano jiidaan leena
dad baan jiidaan leenaa meeshaas yarta haddana lagu dilay aniga hadda aan ka sheekeynahayay waa jiid ninka dadkaas waxay ilaashanayeen gobolkooda ilaashanayeen dadkaan dilhaya yaa naloo soo marin naloo soo aadin waaye waxay baawurta u garaacayaan oo xabadaha noola dhacayaan waxa waaye yaa kenya la soo gelin annaga soomaali kalea naloo soo adeegsaday oo soomaalida kale ah haddii naloo soo adeegsaday iyo haddii alkukiyaatiba labadaba laakiin markay halkaas xabadda nala dhacayo maxaa noo soo doonaysaan waaye maxaa noo soo doonaysaan waaye marka annaguna maxaad noo soo doonaysaa ma dhihi karna miya ma iska dhicin karna miya jiidaha ma fadhiisan karna miya ciidan ma geyn karna miya ku noolaan karna miya ya kuwa iska soo galayo walaanbadaho haddii alkuu reesaas hab iska soo galayo raxanta soo galayo xagee u socota war maxaad ahay gabadha yaro ma dhihi karta miya gabadha yaro ariga la joogtaa la rabaa inay tiraahdo gabadha ariga la joogtaa tiraahdo inay xagee socotaa adeer maxaa kaa soo galay dalkan inay tiraahdaa la rabaa wiilka dhalinyartoo looda la jooga ama geel la jooga maxaa la rabaa xagee ka timid waxaan hay ku noqon gobolkaagii dadkaagii ma soo geli kartid soomaaliya maxaa ku soo gelaya maya waxbaan rabaa xoolaha iska raba dad xoolaha iska cunaan rabaa waxaan iska soo raadsadaa rabaa baahiya iska keehaysa nin saasaana saaka guriga imaw badarka iyo cun tulululululoob ciidan kaluu wataa iyo hawl kaluu wataa wuxuu rabaa gobol dhanba inuu kaa goostuu rabaa meel dhan inuu deguu rabaa intuu usha halkaas kuumbatuu iska degahayaaba meeshuuba degahayaaba soo xareey gobolka dhammaa waa lagaa qaatay haf hal ninoo soo degaa carrada dhan xaraysanahaya maalin bay usoo gelahayaan markaasaa gobol dhan lagaa goosanaya ma malaysaa oromo waaye waxaa umalaysaa ethoobiyan waaye dadka meeshaan degan maray soo degeen baad maqlaysaa hadhow tooba kaasoo dhex baxaya dug dowladda waxbaan ku leeyahay haddaa wax layga siina qish iyo gow male waxaan wax ku leeyahay dalkan wax ku leeyahay qish iyo gow male maxaana anaga aw soomaaligii lima aw afkii soomaaliga aw dalkii soomaaliga aw calankii soomaaliga maxaan leenaha anaga maxay tahay ya waa yaabanahay wallaahi aniga waa yaabanahay soomaalida waxaan kala aqoon laha iyo ajaanibkii dalkan soomaalida ajaanibkian kala aqoon laha maanta waxaa la sheegaya nin aniga aan arkay indhahaygaan arag saaray qofka rabtaa weydiin kartaan maanta way soo raaci kartaan xataa waa idiin sheegi karaa 4 sanaan ku arkahaya meel asagoo fadhiya 4 sanaan wallahi ku arkaya maanta dambe waxaa la yidhi ciidan yar oo meel marhaya waxay yidhahdeen warne waxaad ahayd 4 sano raam buu leeyahay wasaq buu leeyahay derbi buu fadhiyaa wuxuu cuna lama yaqaano wax la siiya lama yaqaano saasuu iskaga fadhiyaa iskaga muturaa hoostuu kaa fiirinhayaa 4 sano halkaas fadhiyaa indhahaygaasaan saarahay wax waalan baan u malaynaa mana waalna muxuu sirdoonaya maxaa dalkan hadda waa dad dhintay maxaa laga sirdoonaa qaab kaleeto waxaan kale unbaa laga jafaalinaya ma aqaan laga cunaa maan hadda soomaaliya maxaa laga sirdoonaa sirdoon wala soomaaliya waa iska dayacan yahay maanta dambe waxaa la yidhi ma aan waaye war ninkii aawe meeshaan ooli jiro 4 sano meeshaan yaallo derbigaas kabaha kabtiisa maalinba kaba qurxoon buu iska wataa oo kabihiisa waa qurxoon yihiin inta kale ebro waaye raanta madaxiisa ma arkaysid indhihiisa ma arkaysid labadaas indhoodu ka soo jeeda war ninkaan muxuu ahaa war ninkii aawe aan maanta masaale ninkii nimanbaa u yimid oo dhallinyaraaho ilaahay idin sharfo ciidana waxayna war maxaa ahayd markaasuu u damca inuu cararo dhab a la siiyey meeshaa qarax ka dhacay dhab markii la siiyaalay maxaa ahayd markaas waa la baaray kilkiyihiisa dharkiisii wixii dhama 50 kubad buu wataay 50 kubadaa la tuuray caaladii futadii dabiisa markaasaa baasaboor waxaa laga soo bixiyey caalamiya qaf war maxaa meesha ku haysaa maya aniga waa iska soo cararo meeshaana dalkaana iska baasaboorkaana ana iskale waxaan ka leeba waa lala tegey maanta male war ninkii halkan fadhin jira aaw war ninkii meeshaan alkoleysaha iska fadhiya aaw sahle alkoleysaha laftigiisa ku sheegana nin dhow sirdoona agency weyn buu ahaa baa la dhihi ninka meesha ay noloshaasaan ku noolnaa haddii jookarihiini midkaan haddii alku rahay derbiga yaalla derbajiifka uu yahay sirdoon weyn oo meesha yaalla waddanka yaalla maxaa la suubinaa maxaan ku ogaan karnaa dowlad ma ogaan karto annagaa ogaan karna shacabkaa ogaan kara gabadha yaroo jidka maraysaa ogaan karta waxaa ogaan kara haddii ilaahay kuu royahay qofka meesha ku ganacsanhaya ogaan kara waxaa ogaan karaa ninka jidka maraya dhalinyartaa ogaan kara laakiin muxuu ka ogaan karaa hadda haddii aan tal dhawaaqdi tiraahdi halkan waxaa jooga libaaxa ugu weynaayo haddii alku raaya ninka la yiraahdo libaaxa ugu weynaa ee waddan hebla fadhiya haddaad tiraahdi cid kuu soo baxaysa ma jirto maxaa ka rabtaa lagu leeyahay maxaa ka rabtaa maxaa kaa quseeyaa lagu leeyahay waddan hebla kii ugu weynaa aa soo yimid meeshaan wallaahi haddaad tiraahdi maanta waxaa lagu leeyahay ya maxaa kaa quseeyay sharci maad ku leedahay ninka maadaa haddii alku raaya maxaa ku haysataa ma waxbaad ku aragtay maxaad ku aragtaa walba leeyahay maxaa ku aragtay hadduu meesha maraayo hadduu jiifo maxaa kaa galay
حانو ما حكوا قوان كرا مركب حان دلك يدك يكون بتباسين كرا دلك يدك يجا سوماليا ما حكوا بتباسين كرا ما بتباسين كرو وحان روا مركب ما أنت عنيك كنترول كنوع عاصي إنه سوق على مش ودن كان إن له كنترول شيء سلا كنترول علم كيس له كنترول دت كيس له كنترول لوقدي سلا كنترول waxaan u dhimanayaa wallahi waa intaas waxaan la hadlayaa waa Soomaali weyn ma sii hadli karo waa xanaaqay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh